marqura ay takbiirta ciidul fidriga ka wada yeertay wadamada islaamka ee adduunka sanadan iyadoona ay noqonayso inta laga warhayo markii ugu horeysay oo sidaan oo kale ay isku waafaqaan muslimiinta adduunka ciidan kumanaan Soomaali iyo wali muslimiin Kenyaan ah ayaa u dareeray aroornimada maanta oo axad ah goobaha lagu tukado salaadaha jamaacooyinka gaar ahaan salaada ciidul fidriga xaafada Islii oo inta badan lagu tiriyay inay u badan yihiin Soomaalida ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee soo gala iyo kuwa ka baxa dadweyne aad u buux dhaafanayo guud ahaan wadooyinkaasi si ay markaasi u tukadaan salaada ciidul fidriga oo markaasi loo cayimay goobo mucayan ah caruur hooyooyin iyo wali waalidiin aad u far badan oo isjiidaya ayaa lagu arkay dhammaan goobaha lagu tukanayo salaada ciidul fidriga xilligan ayadoona gaar ahaan magaalada Nairobi duleedkeeda lagu arkay xilligan dad aad u far badan oo markaasi u dareeraya goobaha lagu tukanayo salaad oo wata dhar aad u qurux badan inkastoo guud ahaan xeriyooyinka wadankan Kenya ay ku dhaqeen qaxootiga Soomaalida laga dareemay xaalad gaar ahaaneed haddana way la qaybsanayaan farxadda ciidul fidriga sanadkan oo waxa laga dareemayaa guud ahaan xeriyooyinkaasi farxad iyo damaashaad ay ku dhaweynayaan munaasabada ciidul fidriga kadib markii ay gudeen waajibkii Alle damaashaadka ciidul fidriga ayaa waxa guud ahaan wadamada caalamka gaar ahaan wadamada Soomaalida ay ku sugan yihiin laga dareemayaa xilligan is-abaabul xoog badan oo markaasi Soomaalida ay sameynayaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka Soomaaliya sida Muqdisho, Jowhar, Beledweyne, Afgooye, Kismaayo, Marka, Baraawo, Guraceel, Gaalkacyo, Boosaaso, Hargeysa ayaa waxa sidoo kale laga dareemayaa guud ahaanba Soomaalida inay xilligan u dabaaldegayaan munaasabada ciidul fidriga ayagoo markaasina aad u faraxsan sida laga dareemay wujuuhda dadkaasi caruurta ayaa waxay ku labisan yihiin dhar aad u qurux badan ayagoona markaasi gacmaha ku sita bastoolada iyo waxyaabo aad u qurux badan oo markaasi ku ciyaarayaan waa markii ugu horeysay muddooyinkii ugu dambeeyay oo muslimiinta caalamka isku waafaqaan marqura inay salaada ciidul fidriga si wadar ay u wada tukadaan